Assalaamu calaykum halkan waa xubinta wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah qorshaha dowladda Itoobiya iyo wasiiro loo soo diray Muqdisho wadaniyiinta oo la ogaaday in la hubeeyay farmajo damac gaar ah wata liiska madow oo Soomaaliya ay gashay qataraha ka dhalan kara damaca dowladda ciidamada Puntland iyo Suldaan Beelweyn Puntland degto oo siciidani ku kacay hogaamiyaasha bariga Afrika oo dib u eegaya dalab ka yimid Soomaaliya iyo Mareykanka oo gudaha Berlin ku weeraray Ruushka iyo China qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan xubinta wararka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar ku dhufo gambeelka si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay wasiiro ka socda dowladda Itoobiya ayaa Muqdisho ku soo wajahan ujeedkoodana markan waa la shaaciyay warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wafdi wasiiro oo ka socda dowladda Itoobiya ay maalinta beriyaha booqasho ku imaan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wafdigan ka socda Itoobiya ee imaanaya Muqdisho ayaa ka kooban ku dhawaad 10 wasiir oo ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ujeedada ay wasiiradan Muqdisho u imaanayaan waxaa lagu sheegay inay tahay ka shaqaynta fulintii dardargelinta waxyaabihii labada dal ay ku heshiiyeen sanadkii hore kadib booqashadii Abiy Muqdisho ku yimid booqashada bishii Juun ee sanadii 2018 oo Muqdisho ku yimid Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxay isagii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku heshiiyeen qodobo dhowr ah oo qayb uu ka yahay isdhexgalka labada bulsho qodobka toddobaad ee heshiiska labada dal oo ahaa kan ugu culus oo muran ka dhexdheliyay bulshada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ahaa in 4 dekedood ay maalgelisato Itoobiya iyo dhismaha laami isku xira Soomaaliya iyo Itoobiya wasiiradan ayaa kulmo Muqdisho kula qaadan doona wasiirada Soomaaliya waxaana la isla meel dhigi doonaa fulinta heshiis ay wada saxiixdeen Abiy Ahmed iyo madaxweyne Farmaajo dowladda Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin wafdigan bari imaanaya magaalada Muqdisho waxaana la dareemayaa qaban qaabo lagu soo dhaweynayo oo ay wadaan qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre heshiiska ay kala saxiixdeen madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dood badan ka dhexdhaliyay shacabka Soomaaliyeed waxaana durba soo baxday in Itoobiya lagu wareejinayo 4 dekad oo ku taala Soomaaliya dekadaas waxa ugu waaweyn tan Kismaayo iyo sidoo kale dekada Ceelcadde iyo dekado kale oo ku yaala gudaha dalka oo hobyo ay ku jirto walow heshiis loogu saxeexay dowladda Qatar ay ku maalgelinayso arintan ayaana la ogeyn waxyaabaha ka soo bixi doona ee sababta xilligan ku soo hadisay wasiiradaas inay soo aadaan magaalada Muqdisho maasalaadna waxa uu shaaciyay in la hubeeyay xoogagga wadaniyiinta ee Farmaajo xildhibaan Maxamed Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in la hubeeyay kooxda la magac baxday xoogagga wadaniyiinta ee uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Salaad oo qoraal leer ah soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa tilmaamay in maalin dhaweed degmo booqanaya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish lagu qabtay 8 dhalinyaro oo hubeysan markii la xirayna la sheegay inay ka tirsan yihiin xoogagga wadaniyiinta kadibna la sii daayay sida hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in xilligan aan loo baahnayn maleeshiyaad isla markaana ay Soomaaliya leedahay ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howlgala Soomaaliya uma baahna gul wadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii al-shabaab dadka madax jibiya xoogagga wadaniyiinta gobolka Banaadir ee madaxweyne Farmaajo leeyahay gudaha dalka iyo dibaddaba waa lagu baahinayaa waxay leeyihiin garab hubeysan oo bastoolada inta loo qeybiyo magaalada lagu sii dhaxdaayay maalin dhaweed degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka booqasho ku tagay waxaa la ii sheegay meeshii bulshadu kula kulmayeen in lagu qabtay 8 dhalinyaradaas ka mid ah oo bastoolada ku hubeysan markii ciidamada amniga qabteen kadibna inta la soo wacay loo sheegay inay ka tirsan yihiin xoogagga wadaniyiinta laguna amray in si degdeg ah u sii daayaan haddaba waxaa isweydiin mudan in maleeshiyad hubeysan magaalada lagu sii dhaxdaayo micnaha ay dowladnimada u leedahay yaa inoo sheegi kara ayuu yiri madaxweynaha waxaanu leenahay Soomaaliya ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howlgala shuruucda dalka ee xuquuqda shacabka ilaaliya ayay u baahan tahay gulwadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii al-shabaab dadka madax jibiya uma baahna iyo hadalkiisa ku soo xiray xildhibaan Maxamed Salaad oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka Soomaaliyana markan waxaa lagu daray liis madow dalka Mexico ayaana arintaas ka dambeeya mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa Soomaaliya si rasmi ah ugu daray liiska wadamada ay ka yimaadaan qaxootiga gacan saarka la leh kooxaha argixisada معهد كدراسية arrimaha socdaalka ee dowladda Mexico ayaa sabtida maanta waxa uu soo bandhigay cilmi baaris uu wadeyntii u dhaxaysay 2014 ilaa 2018 hay'adan ayaa baaritaankeedu waxa uu ku saabsanaa soo galootiga xiriirka leh kooxaha loogu
tilmaamo argixisada si gaar ah galdacwadeedka 19 qof oo dabagal ay ku sameysay sida ku xusan warbixinta muddadaas 4 sano ah oo tiro ka badan 490 qaxooti ah ay ku lug yeesheen fal dambiyeedyo. mas-uulka ayaa waxa uu muujinayaa in 41 ka mid ah ay si toos ah cilaaqaad ula lahaayeen dambiyaad u abaabulan. 550 muhaajiriin ah ayaa waxay u qaybsanaayeen dambiyo isku dabaridan ama kuwa salka ku haya argixisa iyo xustaayada. xafiiska hantidhoorka heer federaal ayaa tilmaamay in kaliya 2018 la soo wariyay 164 kiis kuwaasoo 5 ka mid ah lagu shakisan yahay argixisnimo iyo 14 muhaajiriin ah. soo galootiga waxaa lala xiriiriyay dambiyo abaabulan halka 144 kalena ay hore u galeen dambiyo ayay raacisay qormada. dalalka ay kasoo jeedaan soo galootiga ku lug yeeshay dambiyada ayaa kala ah Soomaaliya, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Yemen iyo Waqooyiga Ameerika gaar ahaan Guatemala. natiijadan ma aysan faahfaahin kooxaha lala xiriiriyay shakhsiyaadkan walow geeska qaaradda Afrika oo Ethiopia iyo Soomaaliya kaga jiraan ay ku xoogan tahay al-shabaab. Mexico dalka dhaca Waqooyiga Ameerika oo dadkiisa lagu sheego 130 milyan Saudin nolol ee Mareykanka ayaa suuq u ah muundooriyaasha caalamka waxaana ka dhaca dilal qorshaysan. dowladda federaalkana waxay si qarsoodi ah ciidamo ugu qoranaysaa Puntland kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in dowladda federaalka ee Soomaaliya ciidamo ka qoratay deegaano ka tirsan gobolka Mudug ee dhanka Puntland ayaa waxaa arrintaas ka hadlay maamulka gobolkaas. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur oo warbaahinta la hadlaya wuxuu been abuur ku tilmaamay warar sheegaya in dowladda ciidamo ay ka qoratay gobolka Mudug ee dhinaca dowlad goboleedka Puntland. waxaas wax jira ma aha ciidan lagama qoran gobolka Mudug. colaad federaal iyo federaal soo duulayana ma jiro ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Mudug. Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in qaar ka mid ah telefishinno uu ku tilmaamay mucaarad ay si bunbuuniyeen wararkaas isagoo xusay in la xisaabtami doono warbaahinta cadeysatay wararka been abuurka. sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiye Axmed in dadka wararka beenta faafiyay ee lacag ka doonayaan dowladda federaalka ha yeeshee arrintaas ay ku fashilmeen waa sida hadalka u dhigay. isagoo sii hadlayay gudoomiye Axmed Muuse Nuur ayaa tilmaamay in wax xiriir ah uusan ka dhaxayn maamulka gobolka Mudug iyo dowladda federaalka isla markaana aysan jirin wax ciidan ah oo deegaanadaas laga qoray. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland waxa uu carabka ku dhuftay in dowladda federaalka aysan ciidamo ka qori karin deegaanada gobolka ilaa inta laga xalinayo khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dowladda. anigu heer gobol xiriir lama lihin federaalka xiriir waxaynu la leenahay dowladda aynu ka tirsanahay. xiriirka federaalkana waxaa leh xukuumadda sare ilaa iyo heer madaxweyne ayuu mar kale yiri. gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in xukuumadda federaalka aysan ciidamo ka qori karin gobolka Mudug ilaa Puntland iyo fila Soomaaliya ka heshiiyaan arrimo siyaasadeed oo muran uu ku jiro sida uu tilmaamay. xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe markii hore baxma ayaa laga rajo qabay inuu isbedel wanaagsan ku yimaado kadib markii talada uu qabtay Siciidani ayaa sheewaaba uu sii xumaaday. haddaba iyadoo ay taasi jirto suldaanka beesha Warsangeli ayaa ku gacan saaray dalab kaga yimid madaxtooyada Puntland. madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ayaa wada dadaalay ku xalinayso khilaafka ka dhashay xilka qaadista maalinkii Khamiista ee lagu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dooba Daareed. xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Dani oo dadaal xoogan ku bixinaysa haatan sidii wada xajood ay ula yeelan lahayd waxgaradkii aqoon-yahanada gobolka Sanaag ayaa Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam oo ah isinka guud ee gobolka Sanaag u dirtay wasiirre xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland. Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam oo si weyn uga carooday xilka qaadista gudoomiye Dooba ayaa la sheegay inuu qaadacay dalabyada ugu yimid madaxweyne Dani si ay ugu wada hadlaan dhamaynta khilaafaadiyada jira iyo qaabka ugu habboon ee loogu gudbi karo marxaladan haatan ka Puntland. suldaanka oo dhowr jeer iskaga daba noqdeen xubno wasiir ah oo xilal kala duwan ka haya xukuumadda madaxweyne Dani ayaa si cad u sheegay inuusan wax wada hadal la yeelan karin madaxweynaha isla markaana aysan waxba ka dhaxayn maadaama uu hore u diiday talooyin badan oo u jeediyay Suldaan Saciid madaxweyne Dani kulankii ugu dambeeyay ay wada yeesheen ka hor intaysan ciidamadiisu weerarin xarunta baarlamaanka Puntland habeennimadii Khamiista soo galeysay. dhinaca kale gudoomiyaha xilka laga qaaday Dooba Daareed ayaa ku sugan deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag halkaas oo kulamo uu kula leeyahay waxgaradkii qeybaha kala duwan ee bulshada. hogaamiyaasha bariga Afrikana waxay dib u eegayaan dalab ka yimid Soomaaliya. hogaamiyaasha dalalka ururka bulshada bariga Afrika ayaa ku kulmaya magaalada Arusha ee Tanzania inta u dhaxaysa 20 ilaa 21 November. ajendaha shirkan oo dhinacyo kala duwan quseeya ayaa waxaa ka mid ah dib u eegista codsi ay Soomaaliya ugu biirayso ururkaas. dalabka xukuumadda Muqdisho oo la gudbiyay sanadkii 2018 soo maray heerar kala duwan ayaa maraya marxalad go'doon qaadasho ah. Soomaaliya ayaa haatan xubin ka ah urur dhowr ah kuwaas oo isugu jira heer caalami qaarad iyo kuwa gobolka ka asaasan. lama oga ujeedada ay madaxda talada ay ka leeyihiin codsiga ku biiritaankii faa'iidada wadanka ugu jirta.
ururada bulshada bariga Afrika oo la aasaasay 2009 sano ka hor ayaa waxaa xubin ka ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo sidoo kale Tanzania. ujeedada ugu weyn ee dibadda loogu taagaya sida ku xusan axdiga waxaa ka mid ah horumarinta iskaashiga ganacsiga. ugu dambeyntiina xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu ka digay in khatarta raashka iyo Janaha waxaana uu ku baaqay in la kobciyo NATO si looga hortago caqabadaha maanta taagan. Mr. Pompeo booqasho ku jooga magaalada Berlin ayaa sheegay in habka Shiinaha uu isticmaalayo dadkiisa ee caburinta ay u egtahay habkii naxdinta badnaa ee ka dhacay bariga Jarmalka. raashka ayaa dhanka kale ku eedeeyay inuu xoog ku galayo dalalka dariska sidoo kalena uu baacsanayo mucaaradka, wuxuuna ku quslay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kaasoo dhawaan yiri NATO waa maskax dhimatay. ha yeeshee Mr. Pompeo ayaa waxa uu wariyaashu sheegay 70 sano ayaa laga joogaa markii la dhisay isbaysigan, marka waa in la kobciyo oo wax laga bedelaa. waxaa loo baahan yahay in isbaysiga uu la falgalo caqabadaha iyo dhacdooyinka maanta. haddii dalalka ay rumaysan yihiin inay kaalmo ammaan heli karaan ayagoo NATO siinaya qarashaadka ay u baahan yihiin, marka haddii aanay waajibaadkooda ka soo bixin NATO waxay halis ugu jirtaa inay noqoto mid aan shaqaynayn. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah wuxuu dalalka Yurub ee xubnaha ka ah NATO ku eedeeyay inay ku guuldareysteen in si dhab ah ay u bixiyaan qoondada qarashka ku baxa militariga ayna difaacooda si weyn ugu tirsan yihiin Mareykanka. NATO ayaa kulan bisha soo socota ka dhici doona magaalada London waxa ay ugu dabaaldegi doonaan 70 sano guuradii ka soo wareegatay markii isbaysigan la aasaasay. daawadayaal warkii aad xubinta wararka la socoteen waa nageyntaas nabadino.